السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومالين سبتيا بيش جنايو أفرتيدا سنة كالابادو كونيو أفري طبانكا waxaad daawanaysaan barnaamijka SWS show waxaana maanta idin la socodsiin doonaa anigoo ah Sayid Axmed Shariif Xasan barnaamijkeena maanta ayaa waxaan ku soo qaadan doonaa qarax ka dhacay magaalada Minneapolis ee Soomaalida ay u badan tahay almihiina soo dhaafay Khamiista iyo Jimcaha ayaa gobolkan Maine gaar ahaan magaalada Lewiston waxaa ka dhacay barafkii ugu badnaa ee sanadkan soo maraa barafkan ayaa waxa uu ahaa mid gaarayay ilaa iyo 3 magaalada Muqdisho maalintii Arbacada ahayd oo ku beegneyd bisha Janaayo 1deeda oo midkaas oo la beegsaday hotelka Jazeera haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran maalintii Arbacada ahayd oo ay ku beegneyd bishan Janaayo 1deeda ayaa waxa qarax asmiidaamin la beegsaday hotelka Jazeera ee ku yaala magaalada Muqdisho qaraxan ayaa la sheegay inay ku waxyeeloobeen dad gaaraya ilaa iyo 34 qof 34 qof ee ku waxyeeloobay ayaa waxa la sheegay 14 kamid ah inay geeriyoodeen 20 kalena dhaawacooda isbitaalka yaalo qaraxan ayaa ahaa mid 3 qaybood ama 3 goor oo kala duwan dhacay waxaana isugu jiray waxyaabaha loo adeegsaday dad ismiidaamin oo bombs ku soo xiray iyo 2 gaari oo halkaasi yeeshay qaraxan ayaa la sheegay markii 2 qof ay isku dayeen inay hotelka ay qasab ku galaan loo diiday markii dambana ay halkaasi isku qarxiyeen banaanka oo dhaawac iyo dhimasho ay ka soo gaareen ciidamadii halka ilaalada ka ahaa iyo waliba dad shicib oo halkaasi marayay video ayaa barta internetka waxay soo dhigtay NTV midaas oo lagu cabirayo sida qaraxa uu dhacay nala daawada video by government officials was the target of 3 bomb explosions on Wednesday. A series of explosions took place at Jazeera Hotel in Somalia's capital of Mogadishu on January 1st. Somalia's police chief said 2 men who appeared to be suicide bombers tried to force their way into the hotel but were killed during the explosions, the first of which came from a car bomb parked in front of the hotel. Witnesses said security forces immediately rushed to the scene and began opening fire. This was when the second car bomb exploded. Roughly an hour later, a third car bomb exploded while it was being searched by military officials. At least 11 people in total were killed in the blasts. No group immediately claimed responsibility. However, the Islamist rebel group Al-Shabaab has periodically carried out attacks in Mogadishu over the past few years. barafkii ugu badnaa ayaa maalmihii Khamiista iyo Jimcihiina soo dhaafay waxa uu ka daay gobolkan Maine iyo waliba magaalada Lewiston barafkan ayaa watay dabeel iyo qabow aad u badan kuwaas oo sababay in ardayda iskuulka laga fasaxo dabaysha ayaa xawligay ku socotay waxa lagu qiyaasayay 20 ilaa 30 miles saacadii walow aysan geysan wax khasaare nafeed ah qabowga ayaa waxa uu ahaa mid ay dadka gobolkan degan aad ula yaabeen oo aysan arag isagoo kale sanadyadiina soo dhaafay qabowga ayaa waxa uu gaaray ilaa iyo -15 ama hoos u dhaafay eber
waxa gadaasheedii kaga muuqda ayaa waxa uu yahay barafkii daay khamiistii iyo jimcihii barafkan ayaa waxa lagu qiyaasay inuu gaarayay ilaa iyo 3 fiid haddii aan gacantayda ku soo qaado barafka ayaa waxaad arki kartaan cadaantiisa barafka ayaa markii gacanta sidaa ugu heysid gacantaada waxay noqonaysaa sida dhagaxii oo kale uu ku adkaanaysaa Soomaalida ayaa meeshan markii ay yimaadeen dhibaatooyinka ay la kulmeen ayaa waxa ugu weynaa hawadii oo mataqaana ay la qabsan waayaan sidaynu ognahay dadka Soomaaliyeed waxa ay ka soo guureen geeska Afrika oo kuleelkeeda aad u daran yahay waxa ayna dadka cadaanka ama dadka deegaanka hore meesha si deganaa is weydiinayaan maadaama dadkan ay ka soo guureen meel aad u kulul sida ay ku doorteen inay haddana deganaadaan meeshan qabowgeeda aadka u daran yahay markii wadada aad marayso ayaa waxa ku muuqanaya dad badan oo Soomaaliya oo jaakada wata qaar gooyaal wata si qabowga isaga difaacaan balse mar walbo ay dhacdo in qabowga ayna ka adkaan karin dhibaatooyinka kale dadka Soomaalida qabowga ka soo gaara ayaa waxa uu ka mid yahay inay barafka ay ku simbirroxodaan ay ku jabaan sanad walba markii xilliyadan kale la gaaro ay dhacdo in dad badan oo Soomaaliya ay barafka ku waxyeeloobaan arbacada ahayd oo ay ku beegnayd bisha Janaayo kowdeeda ayaa waxa qarax uu ka dhacay dabaq ku yaalay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota gobolkaasi oo ah midka Soomaalidu ay aad ugu badan yihiin qaraxan oo dhacay baarihii 8 aroornimo ayaan la ogeyn waxa sababay ayaa waxa uu dhibaateeyay dad gaaraya ilaa iyo 16 qof oo ay badankoodu ahaayeen Soomaali dhibaatooyinka dadka soo gaaray ayaa waxay isugu jireen gubasho jajab iyo waliba dhimasho dadka dabaqa degana ayaa qaarkood la sheegay in ay iska soo tuureen ama ay ka soo boodeen dabaqyada labaad iyo saddexaad ee guriga iyagoo doonayay inay naftooda badbaadiyaan 16 qof ee dabka ku dhaawacmay ayaa 6 ka mid ah dhaawacoodu aad u daran yahay loona gudbiyay isbitaalka weyn ee xaafadaasi walibana wax dhimasho ah booliiska ma aysan sheegin markii hore balse maalmihii dambe ayaa waxa la sheegay in halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 3 qof gurigan ayaa waxa uu ku yaalay xaafada ama wadada caanka ah ee Cedar oo ay Soomaalidu ku badan yihiin waxaana goobta gubatay ku dhawaa masaajid weyn oo ay Soomaalidu leedahay waxa kaloo halkaasi ku gubtay dukaan ku yaalay qaybta labaad ama qaybta hoose ee dhulka ee dabaqa dukaankaas oo lagu iibin jiray cuntooyinka kala duwan barnaamijkeeni ayaan maanta intaasi ku soo koobaynaa intaan mar dambe hawada u kulmi doono usbuuca dambe iyo sabtida soo socoto waxaanu idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo assalamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu